عكرم سويتيز waxaad ka helaysaa macaamiintoodu sarreyso keegu wuxuu qayb weyn ka yahay farxadda munaasabadaada waxaan meesha ka marnay noocyada kala duwan cuntooyinka fudud fast food kuwaas oo haddii aad mar ramiso aad u xiisi doontid dalba hadda oo nagala soo xiriir ebril xalshan 63 عكرم سويتيز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعيقة أدنى لهذا وحنا كنا ولا يسوينا. Transfer Galaxy waxay iga caawisay inay si kan xidho xiriir fiican aniga ee asxaabtay iyo waalidkayga. Transfer Galaxy waxaan u doortay sida uu u sahlan yahay iyo sida uu u dhaqso badan yahay. hooyo see wax ku gaareen hooyo maxaa kugu dhacay ay taaban sidee u dhacday soo kac qolka waxaa geenaynaa oo fadhiga tartiib kaale intaa ka tartiib bismillah tartiib bismillah الرحمن الرحيم الله يتابعنا hooyo يتابع الله قاعدة كان فدي سنة الله جمالي هو قاعد واجبتي الله قاعد ومطالع جمالي هو جمال هاي واجبتي بسم الله هاي جبتها maxaa ku dhacay خاني jikada ku dhacday hay hadda idii maana جمال maxaa dhacay alxamdu hooya jabtaa liisoo sheegay xaafadaada hay isbitaalkan tagay iyo kan baraaja saaray ay oo ku soo wacaya hooyo diin ku keenaa وي احمد يورن حاجه كبخل احمد نقدر ما يايرو احمد ساكنت انا حاجه كسرعان ولا ليه بقى ورا كسي iyada saftaa leeb dadka hariifeeba nafta waxaas camal weligay igu dhicin laakiin gabadha mustaqaanin hay maxaa i bari naftaas waalan waab la yaab si ii hirufte yaab waay walaa maya ma tagaaba isoo haayaba gacantan inay jaban tahay shaki kuma jiro جمال حبيبي ايه قوي هو يعربتها سينا هو يعربتها انا كوغو دفنا حنونك كاير انا كدبنا راجيا كسارايا axmed waa wiil fiican inkastoo iska dhib badan yahay haa dadka fiican dadka dhan way aqbalaan هاي هو إدين صلابنا أنت هذه أحمد كده ميسينيسيا محاني ما نرجعتي أنت عادي معنته ما يملها أنا موبايل سكسي بوجينا أنا كده مستي أمفرين إيش أقرأ مسوق عليه أيوة اقرأ لي هذا إيريدان قراودي ذاك بدن قراودي قبل وبديهن ميا طبعا إدين صلابنا هاي حبيبتي أحمد أروح لسارة وأنا كل ذا اوكي maxaa baa habaan culays saaid u weyn saaran waana sababtay gurigeen u joogto culayskaas muxuu yahay markaba habaan habaan maxaa kugu dhacne habaan habaan maxaa kugu dhacne habaan wadax ii sheegno maxaa kanan ugu oynay aamusoo burburyaaya rajo walba ama maalmo yar iyo kusoo burburtay waxaa xiriir lahayn oo isjecleen eedaday wiilkeeda
ciidadii markay ogaatay kadibna waxay go'aansatay inayna kala fogeyso labadeena waxay rabtay inay igu dartan in guurkiisa aniga aan raali ka ahayn naftayda si u badbaadsadana meesha dhan waa kasoo tagay markaan kasoo tagay kadibna waxaa ogaaday sababta la iigu diidaayo wiilka eedaday maxaa waa sababta lagugu diidaayo familka aniga 20 sano aan la soo noolaa wiilkooda waxay igu diideen maadaama reerkayga aan la aqoonin aniga waxaan dareemaa inaan ahay qof la soo deeriyey meelo aadana ma aqaanin waxaan rabaa reerkayga inaan raadsado garab bay siinayba wallahi waa arrin aad u adag maxaa mar ila wadaagaysa arrintan hadda si habboon aan u caawin inay gurigeena joogto anna maanta waxaa kuu wacsaa hooyana u dhaadhicisid inay habboon guriga joogto waana la joogaysaa habboon taas ka walow la aada waana hubaa hooyo xakiim inay la fahmaysa arrintan habboon runtii aad baan uga xumaa dhibkuu gaaray dunidana arkiisina qof kasta imtixaan u gaaro la nool yahay mana jiro qof zero problems insha allah noloshaadana khayr ay ku dambeynaysaa garab wax kastana anaa kula garab taagan insha allah arrinta hawreerna waa waxa u sahlan ee maanta hor yaalo anigaan kasoo dhimanaa insha allah runahaanti waqtigaan garab u baahnaa garabkeyga noqotaa ma aqaan qaabada kugu mahadcelin doono xabiibti waa waajib ma saaran aniga xitaa waa huwa maanta haddaa booskaa ku jiri lahaa inaan nafta ii hori lahayd aad iyo aad haddaanan garab la siin dunidan waana waqti loo baahan la isgarab istaagin dee waraabaha dadka cunaya sunugu marka soo dhowo mar walba maxaa la qaylinaya soo gal gudaha ku jiraan hooyo waqtiga hooyo amri isbitaal loola cararay yah maxaa ku dhac bismillaahi ismaana isoo wacda waxay ii sheegtay jikada inay ku taraarax kadibna gacantaa ka jabtay waa jabta ah haa ilaahow balaayo naga hay goorma jabta marka waa yahay wax yar ka hore jabtay ismaana ii soo sheegtay had seeta isbitaala jamaal ula cararay maxaa samaysaa dharka soo bedel waa baxeynaa hooyo jamaalaa la hadlay wuxuu ii sheegay in la kabay waxar kadibna guriga la keenaayo hay goorma guriga la keenaa marka waa yahay waxar kadibba waa la keenayaa dhib mal waa baxeynaa arka bedelo hooyo midaan dhalayaa jikada biyo ku daadaadisay anigoo jikada wax ka doontoo soo noqonayaan sanbiriiraxda gacantaa ii hoos martay marka laakiin jikadan maxaa ka doontay jamaal hooyo jikada inay aado maahan gabdhaha u sheeg hooyaha u adeegaan caafimaadkeedana ka fikiraano hooy daawadan aan farmashiyaa kaaga doonaya oo kuu soo laabanaa may hooyo warqadana lasi anagaa hore u gadanayna may daawada anaa ku filan hooy anaa ku keenaa wax yar sug maxay gabadhan saana fiican waa waas naqaanaa leh xilligii oo horumareen xanuunsanaysa isbitaalka isku baranay gabar aad u fiican laakiin waa fiicanta gabadha walaala ilaaha kuu saqire ka war haddaa dhabar ka jibileed ama sinta alxamdulilah ilaahay iima kasan laakiin abahay aakhirkii aniga naagtaan ay jajabinayso meeqa jeeraan ku dhahay jikadaas biyaha ku daadaadin hooyana quraacda kadib jikada ma gelin istara iga dambaysa anaga aamus waxaas aab waan u sheegin bisinkee walaali dabacaddan waan ku aqaanaa markay wax halayso qof kale dusha ka saartaa maxaa kaa qaldan ismaani waxaas yaa lagaa maqal kiniiniga hal xaba hadda cab halka xaba kalena caawa cabaysa insha allah insha allah ayma hooyo cirbadana cirbadda beriya kuu bilaabanaya gacanta saabti la suqaasay noqonay xanuunaysaa intaa ma sameylama kaasiga xanuunaysaa ister seetaa hooyo fiican tahay alxamdulilah adiga ifadhiis ister بايو فهمتي oo fiicanahay hooyo dadkaa ma taqaan هورمرين إيه قبل سو ماهن
maasha allah waa garata gabadheeda idil la dhahaa barasho wanaagsan abaayo wanaagsan abaayo soo dhowow maxaa waaye cashadan waa badan tahay dadkana waa yaryahay haddii la badiyana waxbaa sheegaysaa haddii la yareeyana waxbaa sheegaya inta lagu raaca caawa wixii ka dambeeya aniga aabbo cambuulaan oo lagu talagalaa ismaan warkaas ma maqashaa haa hooy orod xirsi iyo soo waco waxaa tirahdaa cashada diyaar maxaa idinku dhacay maa soo baxdiin maanta dha idinka idin sugaynaa ka waran hooyaan sugaya miiska cashadii alaabta saaran oh really u sheeg miiska cashadii alaabta saaran inaa casheenay waryaa cumar maxaa la meeraysanaysaa kaalina la cashayno aab waa soo ceshayno arag beentiisa waryaa intee ka soo casheys kaal soo fadhiiso allahi walaa waxaa cun haddaa ogaaleed jikin iyo shuweermo yaa ku siiyeyna waa runtiisa hooyo reer xirsiyo la casheeye istara hadda iisoo sheegta khayr bato waa cashada noo guro cashayno warahay ana rajo fiican kula garab taaganahay waxaan aaminsanahay inuu alla garabna siinayo insha allah haa qofka ilaahay tala saarto xuma waaye hadda kadib waxaa loo baahan yahay talaabo walba aa qaadaysid degnaanshiso iyo kafiisiso haa runtaa waaye laakiin aniga yaab iska noqdo nirigtii la dhihi jiray maxay ka nugtaa maxayse ku nugtaa haddii aan rabo xataa inaan tilaabo qaado dhankeenu qaadaa waa sax ma jiraan wax macluumaad dhammaystiran laakiin waxaan hubaa haddaa dhaqdhaqaaq sameyno waxayna nagu soo kordhayaan ani waxaan aaminsanahay aab ducaali inuu yahay qof keliya xogta ugu badan aan ka ogaan karo okay ka waran haddaad israacdaan uu ku geeyo goobtuu kaa soo wada yaraantaada wiilka canaanta xoogaa fiiray canaanta waxba kama dhibayso haddaan la dilayn ilmaha qaar canaanta uga dhib badan dilka nin weyn waaye waxaan ka shaqaynaynaa wadantiisa haddii shaqada laga soo baxo maxaa bannaanka laga qabanaa qolkuu keligiis kala jira adiga lama sheekaysanaysa anigana iga xishoona haddaba muu guurinaa guuri ma gaarin wiilka awaalin adiga guursadaa doonta hamil miyay ogolanay haddaan laba kaara noqdo hadda ani maa kaa warko inaa qabto subaxdii saa u baxda habeenkiyaa soo laabataa yaa kaa warhayo way fiicnaan lahayd hadday sas fududda inaan kula guursado kolay aan haddaan ogaado go-aankayga meeloo i yeelaa waa ogta walaa naag waa la guursan jiray saana looma waalan jiray maxaa isla waalaysaa albaabkan kama bixisid madaxayga adigoon isin ama iyadan ba aniga waxay haddaan ku furaay gabadheedu waa siinaysa anaa korsanaayo ifrax naagan aniga hen ma haynayso anigaa dhalay anigaana haysanaayo bes madaxaygoo keliya isi adiga aamin furiinkaagii iyo gabadhi waa isku xoreeyeen ma fahamta aniga nolosheeda waxaan ka qomameeyaa markaan gabadha kaa reebtay marmar baan waxaas idhaahdaa ifraax haddii hooyadeed la joogi lahayd waxaa laga yaabaa saacadda inay noolaan lahayd adigaa ku madax adeega laakiin wax qoran lama joojin karo jacfar booska hooyadii waa u buuxisay taas waajib waaye haddaan sidaas sameyn lahayn waxay ogaan lahayd qaladkii hooyadiis inaan jacfar ka goynayo
amaasanta aamin A leading consumer magazine just rated Nabisco shredded wheat ahead of all the leading oat bran cereals in nutritional value. That's how much fiber, protein, vitamins, and minerals per calorie we have, and how little sugar and fat. See that? And don't keep the ideas about nutrition around the Nabisco shredded wheat. xageed u socotaan xilligan hooyo istara qolka ku cajista marka banaanka wada ma iska joogtaan habeen socod ma fiicnay hooyo caadi waaye hanoo cabsanin namari xibebe والله الصومالي سأملينا معها كورن كان سامو يسك في عنته صومال aad iyo aad walaa marka ay maada arkasi oo qurxoon tahay dadka si u fiican yihiin isla marka waxa la hadir soo guura حبي gabadhii walaasha ahayd magaceeda wuxuu ahaay haboon arrinteed madan iiga sheekeyne haddaan ii sheekeyno sheeko dheer waa taas marka la kaaga dhigayo maya haddaan isla joognaa haddaan waqti hayna haddaan iiga sheekey haboon waa walaashayga yar waa isla soo barbaarinay laakiin nasiib daro markaa weynana sii kala fogaaneynaa maxaa sababa laakiin aad kala fogaatiin wallaahi hooyaa rabtay inay ku qasabto guuraysan rabeen markaasay guriga ka carartay kadibna waxay ogaatay in anaga soo korinay sug haboon idinka waa soo korsateen walaashii rumiyada maahan سوفيري قبل مسكينة إيه إنها سكرتين درتين معها لو أروسينا لو قصبة أروسكا جمال استعلاء جمالها أوكي لكن هو نساس قبل قسم اسمه هنا بدونك إلهي يوقفنا القصبة وضرن هو يحيرس كا كل شيء ما قرأتي قوان أذكتي حتى هذا وحما والله قبل مسكينته وحكوا دعاء خايف الجلسات كورا waxaad ii warantaa see wax kuu gaareen horta wallaahi anigoo jikada wax ka doontay soo laabashadeydii aan biyo ku taraaraxay kadibna gacantaa ii hoos martay waxaad yeelaysaa gabadhaada ismahaan u sheeg guriga oo dhan waa wada mutuneel markay meelaha dhaqayso si fiican ha u qalajiso haddii kale waa lagu jajabaa guriga horta waxay dhaca waa dhaceen wax soo laabanaya ma jiraan ismahaanna waaba diidaba waxay tiri aniga jikada waxaa iiga dambeysay istro biyahan iyadaa ku daadaadisa fiiri ismahaan waa ismahaan waa iga badisayo adaa dhalay warkeeda hore ha ka yeeli ama ismahaana hadalkeeda soo yeeli jira aniga goorma qaadan jira waa fiican tahay baraabaa tahay haddaadan qaadan warkeeda waxaan maanta is aragnay xildhibaankii reerka ama soo sharxi rabaa haddana warmaana warka adiga iga sukorta warkaa isaga soo boodina wuxuu iga wareystay ismahaan waa inay codaysan warraba ismahaan maxaa dhaca gabadhaada laygama wareysan kara miyaani maya laakiin ninkaasoo nin xaasla ah ma hen hadduu xaas leeyahani ragoo dhan ma oday ducaaloo kale oo iska kaag fadhiyaa umulays ragga 2 iyo 3 iyo 4 u bannaan allahu akbar waa adiga fakfakadaaba tahay waa kuu jeedahay dhegeyso waxaad ii sheegtaa muxuu ka damacsan yahay gabadha horta wax walba ismahaanay ku xiran yihiin inay ogolaatay iyo inay diiddo
wax cadaadis la yiraahdo ma jiraan sax war fiican wuxuu u imaanayaa inuu barto la sheekaysto haddii isfahmaanna waa alxamdulilah haddii isfahmi waayaanna waa rabbi alcaalamiin annaga iyo adiga waxaan uga bannaan kaliya duco maasha allah ma xumo laakiin goorma waa imaanaa gabadha kulley maalmaha soo socda waa noo imaanaa kowdhiya laakiin adiga ka hor la sii wadaag gabadhaada u sheeg in loo soo socdo salootada ha geysaso si fiican ha u soo dhaweyso si gaarinimo leh ya way aniga u sheegaa ducaalo bacdan daawadii soo qabo maxay dhahday daawadaas ii soo qabo subarkan xagaa fadhiisanaynaayee waan ogahay shaqo adaga haysaa aan wax badan sii jooga ma rabi gaariga soo gala ma caadi waay sheeko banaanka ah caawa meeshan maxaad igu yeertay hay dhihin la jamaal la kulansiiyey may waan ogahay midaas inay macquul ahayn waa bis aragnayba habboon meeshay joogto makuu sheegay may iima sheegin ma weydiisay aniga asigoo isla fadhino telefoon ayaa u soo dhacay waxaa la hooyada ayaa jabtay isla markiisa degdegaan ku baxnay 2 mar ayaa wada kulanteen ilaa ay haddana akhbaar maadan ka keenin waxaan u malaynaa adigana wax iga qarinayso may subar waxa kaa qarinaya ma lahan adiga ma ogaatay habboon meelay joogto haddii aan ogaan lahaa maan ku weydiin lahaa maya laakiin waxaa laga yaabaa caawo waxaad iigu wacday ii sheeg aniga subar horta aan dhankaaga waan ka gaabiyey waa run laakiin akhbaar fiican aan ku hayaa caawo akhbaarta fiican maxay tahay hooyadiis ayaa isbaranay weliba isbitaalkaa la igu keenay anigna waa dareensiiyey wiilkeeda inay wax naga dhexeeyaan oo hadda maxaad rabtaa jamaal hooyadiis wiilkaada igu darin inaad dhahdo maya laakiin waxaa laga yaabaa duq hadday i jeclaato dhankaas inaad ka soo marayso moogid fiiri middaas macquul gal maaha duqd hadday ku jeclaato iyada kuma guursanayso jamaal habboon ayuu jecel yahay anigana waxaan rabaa habboon inaan kala wareego adigana jamaal ayaad jeceshahay meeshaas akhbaar iga keen halka ay ku sugan tahay habboon warkaaga waa la dhacay duqdana isgaadgaad ku hay u sheekee soo dhawee waxaa laga yaabaa jamaal markaa isguursataan sodox fiicanna inay kuu noqoto taas aniga igu haleeya subar shaqadaan ku laabanaya wixii akhbaarana teleefonkaaga aga soo sheegaya okay arrintan ha ka seexanin ku dadaal